kulan warbaahineedkoodan oo wadajir ku qabteen xarunta guud ee xisbiga cadaaladda Israel Kowcid oo ku leeyahay gudaha Hargeysa xogayaha warfaafinta isla xisbigaasi Yuusuf Kayse Cabdilaahi xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka xisbiga Kowcid Cabdiqani Salaf Kabtanka afayeenka guud ee xisbiga Kowcid محمد حسن خير شباش يسيدو كلا xogayaha golaha dhexe xisbiga Kowcid محمد عمر جير ay waxay xuseen in maxkamadda ay la tiigsan doonaan xildhibaanadii golayaasha deegaanka dalka uga soo baxay xisbiga Kowcid xilligana biday inay ku biiraan xisbiyada kale dhigooda waxaan yiraahdeen sidan waxa weeyaan xisbiga kulmiye 7 sano dalka joogay wuxuu sameeyay sharci jabintii ugu weyneed ee dalka soo marta sharci jabintii ugu weyneed ee dalka soo marta oo la dul qaadanayna xisbiga Kowcid oo dul qaadanay halka ay nala gaadho maxkamadda ay nala gaadho guddiga diiwaangelinta ay nala gaadho haddii ay dhici weydo waxay u ekaanaysaa macno kale oo ah in dalkuba ku burburade waayo waxa ku dhacay xisbiga Kowcid waxa weeyaan waa hagardaamo iyo dhiilo ku dhacday xisbiga Kowcid oo aan u jeedinayno waliba shicibka waxa ku maqan halkan 22 xildhibaan oo baarlamaanka naga maqan gudoomiyada baarlamaanka naga maqan waxay la joogaan xisbi aan doorasho baarlamaan galin lama oran karo baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka ee wadani lama oran karo waxa dheer maanta in la yiraahdo waxa ka tagay xildhibaanadii golaha deegaanka ee ka soo baxay xisbiga Kowcid baa tagay oo kulmiye tagay iyadoo loo ogol yahay in 6 bilood ka bacdi 10 sanadood liisanka loo haysto ka bacdi ay tagi karaan islaama xubnaha iyagana in cidii maxaan ku yiraahdaa xaq u leebaan aan gacanta ka saarayno sharciyo dimuqraadiyada loogu tartamo waxaanu leenahay sharci sidaas oo kale dimuqraadiyana wadanka ugu tag arrintanna waa in la taageeraa oo xeerka la jabiyay sida uu sheegay xeer foodhiin faqradiisa 11 iyo 4 waa in 10 sanadood marka ay xisbiyada la soo doortay 6 bilood ugu dambaysa ayuunbaa xildhibaanku uu ka bixi karaa xisbigu ka soo baxay oo sidoo sharcigeenu sheegayo marka imikana de 6 sano baa harsan 4 sano baa dhacday intii la soo doortay xisbiyada 6 sano maadaama ay dhacdayna ninka maanta yiri waxaan ka baxay xisbigii aan ka soo baxay wuxuu lumiyay xubinnimadii xilkii xisbi ama shirqoolkii lagu qaaday xildhibaanada ee ay ugu horeeyeen hoggaanka xisbiga kulmiye ay ku qaadeen xildhibaanada xisbiga Kowcid ee dhammaan gobolada Soomaaliland laba gobol un baa aqbalay gobolka Saaxil iyo Gabil gobolka Boorama uu ka fiye qaba berberima gobolka Togdheer muu iman Sanaag iyo Sool lama iman Hargeysa ayaa xubina ka tagtay aad iyo aad baan xildhibaanadii halkan uga mahadnaqaynaa fariintaydii ay qaateen iyo digniintaydii aan u dirnayba ee sharci aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa xisbi ahaan waxaan leenahay adkaysiga aad ku adkaysateen cid wax idinka qaadi kartaa ma jirto hadday idinku hanjabayaan guddi baa laga qaadi doonaa adigoo gudoomiye guddiya waxba ka qaadi maayaan xalaaliye waxa idinka qaadayaan ma jiro waan idin hambalyeynaya inta tagtayna waxaan leeyahay sidaas ku lumiseen xubinnimadii bedelkiina waa diyaar sifo sharci baanan u marayna haddaba maanta waxa kala cadaan doonta daanu uma malaynayo ninka yiri madaxweynahan maxkamad saaraya inuu sharci u joojinayo u malayn وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تفيق عالمي كسومالي كيبل مقالة درقيس